السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلاتي وعن داود يلكسو دوادا برنامج جارة وينو كيجي دونو تاريخ دوبي النيل webiga Niil waa webiga ugu dheer caalamka waxa uu dhex maraa qaaradda Afrika webiga dhererkiisu waxa uu gaarayaa ilaa 6650 kiiloomitir waxa uu qaybsamaa laba qaybood oo kala ah Niilka buluugga ah iyo Niilka cad Niilka cad waxa uu ka soo bilaabaa halka loo yaqaan harooyinka waaweyn oo ah bartamaha qaaradda Afrika halka ugu fog ee webiga Niil ka soo bilaabma waa waddanka Rwanda waxa ay ka yimaadeen biyaha soo raaca webiga Niil webiga Niilka cad waddanka gaar ahaan harada weyn ee harada Victoria waxa uu soo maraa wadamada Uganda koonfurta Suudaan halka Niilka buluugga ah uu ka soo bilaabmo harada Tana ee waddanka Itoobiya waxa uu soo gaaraa waddanka Suudaan waxa ay ku kulmaan labada webi meel u dhow caasimadda waddanka Suudaan ee Khartoum waxa webiga isaga gudbaa 9 dawladood oo ku yaala qaaradda Afrika waa Suudaan Masar Itoobiya Kenya Tanzania Uganda Rwanda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Burundi goobta asaasiga uu ka soo bilaabmo Niilka cad waa harada loo yaqaan harada Victoria waxay haradani ku taalo oo ay xuduud la noqotaa wadamada Uganda Tanzania iyo Kenya waxayna tahay haradani mid ka mid ah harooyinka waaweyn ee qaaradda Afrika marka webiga Niil uu ka soo bilaabmo harada Victoria waxa loo yaqaan Niil Victoria waxay uu soo socdaa ilaa 300 kiiloomitir kadibna waxa uu soo gaaraa harada loo yaqaan harada Alberta kadib marka uu ka soo baxo harada Alberta waxa lagu magacaabaa Niil Alberta kadib waxa uu soo gaaraa waddanka Suudaan sidaasna waxa uu ku qaataa magaca Niilka cad
halka niilka buluugga ahi boqolkiiba 85 biyaha webiga niil. taas macnaheedu waxa weeyaan webiga niil boqolkiiba 85 waxa uu ka yimaadaa niilka buluugga ah. niilka buluugga ahi waxa uu ka yimaadaa amaba ka soo bilaabmaa harada Tana ee waddanka Itoobiya. waxa uu magaca niilka buluugga ahi la baxaa kadib marka uu soo gaadho waddanka Suudaan. inta ka horreysa waxaa lagu magacaabaa magaca Ababay. kulanka labada niil. kadib marka labada qaybood ee niilka cad iyo niilka buluugga ahi ay kulmaan ayaa waxay sameeyeen webiga caanka ah ee niilka. sida aynu ognahay webiga niil waxa uu ku dhammaadaa oo ku darsamaa badda dhexe ama badda loo yaqaano Mediterranean Sea.